Sheekh Mustafa Xaaji Ismaaciil Haaruun oo kamid ah culimada waaweyn ee Soomaalida oo soo gaaray magaalada Boorama ayaa waxa uu kormeer ku soo maray xarunta dayactirka kutubta Quraanka Kariimka ee magaaladani Boorama ee Jamciyatu Nuurul Islaam isagoo bulshada ugu baaqay in laga wada qayb qaato dayactirka kutubta Quraanka Kariimka iyo ilaalintooda xoog iyo dhaqaale iyo tala iyo ra'yiga ku caawino shaqo kasta way hirgelaysa nolosheeduna waa wada baylah gebigeedba ما راح يسألون دولة يجي جمعية وين واحد ما قفطان مقالة ولما جمعية يلو كجرتان وحيرو كجرة أي استحيل قامي إنه وحقبته ميدا قوم حسية ميدا مساكين توقيبية ميدا وحبر الشوك وعاوية ميدا بوغاقية بجامعات الفرع واحد طبعا نقطة وضعهم استحيل قام ضبط قبل الدقرية مقالوين في الدقرية سوداء القامة ولا لدني waxay kamid yihiin marka dadkii isxilqaamay ee shaqooyinkan hore u qaban jireen noo qabtay kitaabka quraan isagoo googaan meel kasta yaala kitaabada waa soo tiro badan bariga hore yaraayeen malaal xajacla laga qabayo de aad baa loo ilaalin jiray galma sayta loo sameeyo ayaa de gal kale lagu sii ridi jiro garabkaas la sulan jiro wala haysan jiray marka kitaab baa la kala dhaxal jiray oo kitaab quraan ayaa intaas soo kala dhaxal jiray laakiin marka ay ugu bateen dayacodina ugu bato iyagoo googaan iyagoo carruurtuna dee loo waxbay wax ku dhiga jirto kitaabay googooyaanba ma yaaki jirin laakiin imika mid alifba loo dhigaa sitaa kitaab quraan sitaa marka meel kasta waa ku googaan yihiin waana yaalin waana daadsan yihiin cala alaqal dee cid inaga habaysaynu u baahano ilaahay hadalkiisu inaanu ugu aqdayacmin suuqa ka ururiso malcamadaha ka ururiso guryaha ka ururiso asturta wixii dib loo hagaajin karo dib u hagaajiya haday walaaluhu u istaageen inay shaqada qabtaan waxaan idinka codsanaynaa waxa weeyaan haday caqli tahay haday xoog tahay haday xoolo tahay mid kasta bay ku caawisaan la qabataan sallallahu alayhi wa sallam aniga ku hadlay magaca Jamciyatu Nuurul Islaam al-Khayriyya li khidmati al-Qur'an al-Karim kutubtan waxaan ka soo gurnay inta ugu badan magaalada gudaheega intiina soo gaadhay marka xariirad baa ugu fogay dhinaca kalena Gabiley iyo Wajaale tuulooyinka xataa qaar ba marka laga keenaa kutubtaas runtii waxa ka muuqata marka lagu keeno dayacnaan aad iyo aad u badan baa ka muuqata dayacnaantaasina runtii waxa u sababaan isleenahay iyadoo marka qofna aanu dib u eegaynin kitaabkii go'ay oo mar walba ardayga uu kitaab ka dhamaado loo sameeynayo marka maxay ahayd kitaab cusub loo soo iibinayo حتى قلوين كان خشنك قرايا كسر دح قبتين خشنك كتبتي مركا دح يا عيسى مركا إن شاء الله وحن رجينا يون إن محويان فرحتنا إنه هيد إنه شيخنا لا أركو عقبات كتير كتاب كلا سبحانه وتعالى هي عيسى